بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا نكسن صاحبيال لaba arrimood aan rabaa inaan ka hadlo. labada arrimood halkan u soo galay doonay inaan ka hadla waxay tahay mid waa midda koowaad gabdhaha ku soo laalaabtay sun cabitaanka deegaanada Galmudug qaasatan degmada Guraceel ee xarunta ganacsiga gobolka Galgaduud iyo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. midna waa midda xigtay labaad oo ah dhalinyarada wariyaasha ah ee warbixinada ku daabaca beejidka. to koowaad haddii aan ku hormaro midda koowaad gabdhaha Soomaaliyeed qaasatan gabdhaha reer Galmudug Guraceel iyo Dhuusamareeb marka la yiraahdo ayaantana moodo hadalhayntooda inay bateen Guraceel jooga Dhuusamareeb jooga gabar walba la leeyahay sun bay cabtay magacyo badan la baxshay. waxaan rabaa inaan hal mid iraahdo abaya waxa tahay gabar Soomaaliyeed oo qadani leh oo qiimo leh oo xushmad leh inaa qiimahaada marka koowaad ogaatid inaad tahay gabar Soomaaliyeed ma ogtahay waxa haysatid inay jiraan dad haysan labadaada indhood ku caafimaad qaban waxba ku arki kartaa labadaada gacmood waxba ku qabsan kartaa labadaada god ku saca kartaa aqligaaga waxba kugu hagi kara waxbaad fahmi kartaa dad intaas aan haysan ayaa adduunka jooga kuna nool waxna ka qabsada adigoo lixdaadi lixad Ilaahay ku dhameystiray walaalo waarid loo dadku jecel ku garab taagan yihiin leh in aasun cabta marka koowaad waa kugu qalad marka xigta aqro waa ku daran tahay waxa adduunka ka carareyso aqro wax ka daranaya aniga ma aaminsan in gabar sun ay jecel u cabtay laakiin hadii ay run tahay oo nafsadaada qiimo kula ma laha wax qiimo ay kula leedahay ma jiraan qofkii ku qiimeeyo adiguna qiimeey qofkii ku jeclaado jeclaaw qofka guurso doonta albaabka ay ka soo gargaraacaya marka xigta gabdhaha waxaan kula dardaarmaya saaxiibkiina koowaad waaridkeena ka dhigta walaalihiin ka dhigta waxa dareentiin u sheegta waxa san haysta dhaha waxa laga yaabaa gabdhaha inay dhowr isku jiraan gabar family problem oo haysto taasi oo family ka cararaysa dhibaato soo jeedo ogow nafsadaada dhibaato u soo jeeday maalinta yawmal qiyaamah hadii naftu ka dhacdo waxaas cabta nafta ay kaaga dhacdo wixii wax ka darana lagu keenaya nafta iskaga qaad lagu dhahayo iyadoo maalintii maalin ka daran ah oo wax ku garab taagan oo daawo ku siinaya isa jirin waaridka saaxiib la noqo nafsadaada qadari tixigta gabdhaha deegaanka kugula nool magac baa wadaagtaan Guraceel gabdhaha ka soo jeeda ee aqoon-yahanada ah ee gabdhaha ah magaca wadaagtaan waxaan rajaynayaa inay soo laaban gabar dambe ee degmada Guraceel ku nool iyo gabar dambe Dhuusamareeb ku nool soo cabti ama family barabalan ha ku haysto ama qofa isku xumaateen ha jiro imise qof ayaa ka daba ordayso ku jecel halkaas ayaan uga soo baxayaa taas tixigta dhalinyarada wariyaasha ah ee riboodyada ku soo daabaca beejidka ayaan rabaa inaan laba kalma iraahdo labada kalmo oo ay dhahayo waxay tahay midda koowaad degmada Guraceel ma ahan gobol ka tirsan ama degmo ka tirsan Hindiya wax ay ka tirsan tahay oo gobol ahaan ay hoos tagtay degmo u tahay Galgaduud waxay maamul wadaagaan Galmudug horta midaas ogaada waxa isleedihiin fiyusku hela adiga degmada ay ka soo jeeda ee ku dhalatay dhibaato u keenay magacana ha ka dilin wariye baa tahay waxa ay qorayso waa inay taftirnaadaan sharciga saxaafadda waa hadaa wax ka taqaan hadaada ka aqoonina anigu ma ogi midaasi warbixinta ah gabara sun cabtay waxay ku cabtay ma taqaanid maxaad ula soo boodaysaa jacayl u cabtay ma u tagtay ma soo weydiisatay familkeeda ma u tagto ma tir gabadhan maxay sababsata isbitaalka la geeyay ma tagta ma soo ogaatay warbixin dhameystiran ma hesha maada helin sababtoo riboodyada dhan markaa fiirisid waa copy paste ay u badan yihiin laba hamin ka hor inay heedo maleynaya dhacdada Dhuusamareebed gabar wariye ah oo aqaano sawiradeeda la wareejinay markaas magaceesa lahayn la saaray oo liir heblaayo sun cabtay magacii iyo sawirkeena isma laha ha noqonina kuwa ugu horeeya ee warbixin qaldan qaado ee noqo wariyaha ugu horeeya oo deegaanka hadaa ka soo jeedid oo degmadaada u naxaysid deegaankaaga u naxaysid waxa aad ka gudbinaysa aad taqaanid noqo midka runta ka sal gaara ee warbixinta oo dhameystiran keena dhinac walba ayadoo leh qoraal yar baa soo qaadatay qoraalka aad cod ku soo sameysay macnaha ay soo kordhinayso ma sheegi karaan saxaafadda sharcigeeda waxaan ka garanayaa tixigta
deegaankaaga dhibaatadiisa halkaa ka sheegaysid waxaa ka qurux badan inaad soo bandhigtid meelaha ugu quruxda badan waxyaaba uu gaarka la yahay. Dhuusamareeb waxay leedahay meelo ay gaar ka tahay, Guraceel waxay leedahay meelo qurux badan, ganacsigooda labadaba kor u socda, horumarkooda kor u socda, laakiin waxaad soo gudbisaan waxyaabo liddi ku ah oo aniga ahaan aana jeclaysan. runta inay sheega dhalinyarada wariyaasha wax soo badin wax soo bandhiga iskuma jiraan kuwa xaqiiqada markay soo bandhiga hore lagu agaadaa. sababtu waxay tahay muuqaal la yimaadaan, qofkii bay soo wareystaan, dhakhtarkii bay tagaan, familygii u tagaan, intaasba in kama hayno. waxaana kamid nahay dadka in daawanaya oo deegaanka waxay ka dhacaan ogaad inay la socdaan. waa mahadsantihiin. labadaas kelmo ayaan rabaa inaan ku soo koobo. dhalinyaranimo leeyahay, aqoon la leeyahay, cilmiga hala kaashado. waxaad aqoonin maanta waa baran kartaa. deegaanka aad ka soo jeedid degmada Guraceel magaceeda dhulka ku jeedin please and please. Dhuusamareeb dhulka ku jeedin please and please. Guraceel waxa ay kamid noqotay Hindiya qayb kamid ah. Guraceel waxay ka tirsan tahay Galgaduud. Dhuusamareeb waa caasimadda Galmudug oo maamul ahaan. waxay raadaan in la kaftaa markaa gabdhuhu haddii ay jacayl u cabaan oo filmeen Hindiya ay badsadeen oo jacayl ah, adinkuna kuwa la hadaraanta ee dadka lagu dilo laguna xada ayaa badsateen. waa haddii film la yiraahdo. sababtu waxay tahay waxyaabihii lasoo bandhigay oo la cadeemaha laga keenayo lahaa waxaan fiirsaday film saasa gabdhaha lagama hayo. waana mahadsantihiin. intaas ayaan kusoo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.